kulankan imika ay soo qaban qaabisay hay'adda daryeelka caafimaadka dadka magangeliyo doonka ku ah wadanka Netherland ee ka dhacay deegaanka Markelo ayna ka soo qayb galeen qaar badan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ee iyagu ku cusub joogitaanka wadanka Netherland ayaa waxa diiradda lagu saarayay sidii dadkaasi ay hay'addan uga dhaadhicin lahayd halista iyo aafooyinka uu reebo gudniinka lagu sameeyo hablaha Soomaaliyeed taasoo dhaqan iyo soo jireenba u ahayd in lagu sameeyo hablaha Soomaaliyeed meel kasta oo dunida kaga joogaan inta ay socotay doodaasina waxa ka qayb qaadanaya qaar kamid ah mashaayikhda Soomaaliyeed ku nool wadanka Netherland aqoon-yahanada iyo mas'uuliyiin ka socday isla hay'adda daryeelka caafimaadka dadka magangeliyada ku jooga wadanka Netherland iyadoo dhinaca kalena laga dhigeysanaya aragtida dadka ku cusub wadanka Netherland ee Soomaalida iyo sida ay u arkaan halista uu leeyahay gudniinkaasi lagu sameeyo hablaha Martin oo iyadu kamid ah hawlwadeennadii mas'uuliyadda hay'addaasi daryeelka caafimaadka dadka magangeliyada joogta ayaa Soomaalidii halkaasi joogtay waxay dhagahooda ku dhibcisay in guud ahaan wadanka Netherland uu mamnuuc ka yahay gudniinka lagu sameeyo cidii lagu helana ay tahay arintaasi fal dambiya oo ku weyn wadanka Netherland. Als er geen vragen zijn, wil ik nog wat zeggen. Het is namelijk zo dat vanochtend en vorige week ik uitgelegd heb dat het in Nederland verboden is, bij de wet. Maar dat Nederland niet de eerste is. Ook in Afrika zijn er veel landen die een wet specifiek tegen meisjesbesnijdenis hebben. marka la soo hadal qaado gudniin waxa maskaxda dadka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogan ku soo dhacaya inuu gudniinkaasi xiriir la leeyahay dhinaca diinta hadaba si taasi looga jahli bixiyo qaar kamid ah dadweynihii ka soo qayb galay doodani ka dhacday deegaanka Markelo waxa lagu marti qaaday madaxweyne Sheikh Ahmed Macluw oo kamid ah mashaayikhda Soomaaliyeed in muddo aba ku nooleed wadanka Netherland kana qayb qaadanayay wacyigelinta arintaasi sidii loogu hortagi lahaa dadweynihii halkaasi ku sugnaa ayaa wax badan ka weydiiyay arintaasi siyaabaha ay xiriir ula yeelan karto dhinaca diinta iyo waxa ka iman kara hadii ay Soomaalida ka tagaan isagoo sheekana soo hadal qaaday in gabadhii lagu sameeyo ay xaq u yeelan karto inay waalidiinteeda xitaa maxkamad la soo tiigsan karto culumada waxay ka hadleen gabadha markii la gudaayo oo bushimaheeda hoos la jarjaro oo la gooyo oo korkeeda wax laga dhimo waxay waa dacwo kartaa la yiri culumada saasay dhaheen ibn Hazm wuxuu yiri gabar kasto oo la gudo oo korkeeda wax laga gooyo dhibkii ka soo gaaro dhib horaan iyo dhib dambaba xaq ayay u leedahay inay aabaheeda iyo hooyadeeda ee intii gudniinkaas ay gacan ka geystay ay qaaliga u tagto oo dacwo qadimato dacwadaas oo aabaheeda iyo hooyadeeda dhanka ah iyo dadkii gacan ku siiyay waxayna xaq u leedahay magdhow inay weydiisato magdhowgaas xataa in korkooda loo gooyo ama se in loo lacagay ay weydiisan karto 700 sano kor ayuu yiri ibn Hazm arintan oo gudniinka intii uu kulankaasi socday waxa dhinaca kale looga hadlay aragtiyo iyo waliba talooyin loo soo jeedinayo qaar kamid ah dadweynihii goobtaasi ka soo qayb galay taasi oo ku aadan siyaabaha ay muhiimka ugu tahay dadkan Soomaaliyeed ee ku cusub wadanka Netherland in ay bartaan luqadda looga hadlo wadanka Netherland taasi oo la sheegay in ay tahay furaha koobaad ay kula qabsan karaan nolosha guud ee ka jirta wadanka Netherland waba hadii ay ku sii nagaadaan guud ahaan wadanka Netherland saar waxay kamid tahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed ku nool wadanka Netherland sidoo kalena waxay tahay la taliyaha hay'adda imika soo qaban qaabisa kulankan waatan iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa yaratihiin waa inaad la qabsataan luqadda wadankan barataan marka luqadda wadanka aad baratid ayaa arkay macna ayaa muxuu ahaa macna bari ku anfacayso sababtoo ah waxa waaye dhalinyaro ayaa tihiin hatta hooyooyinka macna da kuma xirna luqadda laakiin wadan aad ku nooshahay inaad luqadooda baratid waa muhiim kabacdina wixii tabar ah qaban kartid marka noloshaada waa dhisa kartaa laakiin Europe waxa waaye badan meel macaan ma leedahay kullu waa wada muxuu ahay dhanaan kulligood waa saas waxay ku xiran tahay qof sida ula qabsada waa meesha tagtidba marka meesha Ilaahay qeyrkeena ku jir Ilaahu nagay ayaa la yiraahdaa marka waxa waa caalamka ilaa imika waxa laga guday 130 milyan oo hablo iyo haween isugu jira waxaana gudniinkaasi laga isticmaalaa 28 wadan oo dhaca qaaradda Afrika iyadoo sidoo kalena wadamada Asia iyo bariga dhexe qaar kamid ah laga isticmaalo inkastoo warbixinaya had kulankan soo qaban qaabisay ay ku sheegtay in wadamada Soomaaliya Djibouti iyo waqooyiga Suudaan laga isticmaalo gudniinka kan ugu xunay hablaha la qodba ee loo yaqaan fircooniga marka kulankan la isku soo xoriyay ujeedadiisuna waxay tahay digniin Soomaalida ku cusub wadanka Netherland loo ifinayo ee ku aadan inay ka waantoobaan hanka
ay hablaha Soomaaliyeed ugu qabeen inay gudniinkaasi ku sii wadaan. Cabdiweli Ibrahim Garyare, Universal TV, Markale, Netherlands.